بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال iyo marweyn meel aad joogtaanba kusoo dhawaada TV-ga Somali Satellite. Waxaan joognaa xarunta TV-ga Somali Satellite ee magaalada Birmingham. Idanka eebe habeen kasta oo caawa kala ah waxaynu ka hadli doonaa barnaamij la xiriira hogaaminta. Caawa maadaama ay tahay habeenkii koowaad ee aan ka hadalno barnaamijkan, bal waxaan muuqaal guud ka bixin doonaa mawduuca hogaaminta haddii la haydmo. waxa u horeysa oo aan rabno inaanu ka hadalno caawa waa inaanu qeexno kelmadda hogaamiye. marka laga hadlayo hogaaminta waxaa la yiraahdaa hogaamintu waa mawduuc cimri dheer, waa mawduuc gudo ballaaran, misana waa mawduuc ilaa hadda aan la garan karin macnaha dhabtahay hogaamiye. dhanka cimri dheerida waxaa la yiraahdaa hogaamintu way ka da'weyn tahay aadamaha, oo waxaad ku arkaysaa qur'aanka eebe subxaanahu wa tacaala intuusan abuurin nabiyullaahi aadam inuu malaa'igta u sheegay inuu abuurayo khaliifa. waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa. mufasiriin badan ayaa markay khaliifa ka fasirayaan waxay ku tilmaamaan inuu yahay hogaamiye. marka hogaamintu waa mawduuc ka da'weyn aadamaha. dhinaca baaxadweynida ama gundheeridana waxaad arkaysaa baaxadda bugaagta laga qodo iyo researchka lagu sameeyo. oo tusaale ahaan kambaniga Amazon ee buugta gada haddaa websitekiisa gashid oo ku qortid kelmadda leadership, markii ugu dambeysay oo ahayd asbuucii hore wuxuu hayay bugaag ku dhow 80,000 oo buug oo wadata magaca leadership. haddii Google aad ku qortid leadershipna waxaa kuu soo baxaysa wax ku dhow 500 bilyan 500 milyan oo wax oo wata magaca leadership. marka mawduuca cimrigaas leh oo ka da'weyn aadamaha, baaxadda bugaagta laga qorayna ay intaa leegihiin, misana ilaa hadda inaan la isku waafaqnayn qeexidiisu waa wax sahlan maaha. haddaan idinla wadaago qeexidaha qaarkood, muraad buuggiisa markuu ka hadlayay hogaaminta wuxuu yidhi waa awood lagu odoroso laguna soo bandhigo xal. marka hogaaminta wuxuu ku tilmaamay awood. shaqooyinka hogaamiyahana wuxuu kusoo koobay 2 odoros, inuu odoroso mustaqbalka iyo inuu soo bandhigo xal. qofka wax odorosaya maxay tahay shuruudaha looga baahan yahay, goormee qofku wax odorosi karaa, xal noocee soo bandhigaya, gadaal baynu ka sheegi doonaa. rag kale waxay dhaheen maya, hogaamintu waa xiriir. ninka hogaamiyaha waa xiriirka uu la leeyahay mujtamaca uu hogaamiyo. waxaa la yiraahdaa sida tayada qoysku ay ugu xiran tahay xiriirka ka dhaxeeya hooyada iyo aabbaha, labada qof, ayaa tayada hogaamintuna waxay ku xiran tahay xiriirka ka dhaxeeya qofka wax hogaaminaya iyo mujtamaca hogaaminaya. marka dad kale waxay dhaheen hogaamintu waa xiriir, waa relationship. dad kale waxay dhaheen maya, waa isbedel. hogaamiye waxba bedelaa. dadka wuxuu ka raraa meel abaar ah, wuxuu u raraa meel barwaaqo ah, wuxuu ka raraa colaad, wuxuu u raraa nabad, wuxuu ka raraa dib u dhac, wuxuu u raraa horumar. marka waxay dhaheen rag kale hogaamintu waa isbedel oo in wax la bedelo. rag kale waxay dhaheen maya, waxaas oo dhan maaha. hogaamintu waa higsasho, waa meel fog oo ummaddu higsanayso 20 sano 30 sano 50 sano. marka ninba ninkuu kaga fiican yahay inuu ummadda u sahamiyo meel aysan aqoon oo mustaqbalka ah ayuu kaga fiican yahay hogaaminta. dad kale waxay dhaheen maya, hogaamintu waa soo jiidasho, oo mid kamid ah waxyaabaha laga rabo qofka hogaamiyaha waa inuu mujtamaca uu hogaamiyo uu soo jiito oo qalbigooda uu helo intuusan helin gacantooda. rag kale waxay dhaheen waxaasoo dhan maaha hogaamintu. hogaamintu waa dhiirigelin, oo mid kamid ah shaqada hogaamiyaha waa inuu ummadda uu hogaamiyo uu dhiirigeliyo, kiciyo, iyaga dhan uu kicin karo. waxay dhaheen kuwo kale maya, hogaamintu waxa weeyaan waa jihayn, oo qofka hogaamiyaha ah dadka wuu jiheeyaa, waddu u tilmaamaa. rag kale waxay dhaheen waxaasoo dhan maaha, hogaamintu waa saameyn. qofka hogaamiyaha mujtamaca uu hogaamiyo ayuu saameyn ku yeeshaa, dareenkooda, qaab fikirkooda iyo noloshooda dhan buu saameyn ku yeeshaa. kuwo kale waxay dhaheen maya, waxaasoo dhan maaha, hogaamintu waa himmo gelin. qofka hogaamiyaha ah dadku hogaamiyo inuu himmo caaliya u yeelo, moralkooda sare u qaado, niyadooda dhiso si ay u noqdaan dad isagoo kale hogaamiyaala. marka waxay dhaheen hogaamintu gabigeeduba waa himmo gelin. qaar kale waxay dhaheen maya, hogaamintu waa qancin. qofka hogaamiyaha waa inuu awood u leeyahay inuu ku qanciyo dadka uu hogaamiyo. qaar kale waxay dhaheen hogaamintu waa aragti dheerid, oo qofku ka aragti dheer yahay oo uu ka sii arki karo mustaqbalka, oo xaalad kasta ka fiirin karo meel ka duwan meesha ay dadku ka fiiriyaan ayuu kaga fiican yahay hogaaminta. kuwo kale waxay dhaheen maya, hogaamiyuhu waa fududayn. hogaamintu waa fududayn, hogaamiyuhu nolosha adag inuu fududeeyo, communicationka dadka waa inuu fududeeyo. kuwo kale waxay dhaheen maya, waxaasoo dhan maaha, hogaamintu waa awoodsiin, empowerment. qofka hogaamiyaha waa in dadku hogaamiyo awood siiyo si iyagu ay mustaqbalkooda ay u jahaysan karaan. dhinaca islaamka marka laga hadlayo hogaaminta waxaa la yiraahdaa waa ammaana.
waa ammaano culimada qaarkood waxay dhaheen waa mas-uuliyad qaar kale waxay dhaheen waa ballanqaad la iskala xisaabtamayo amaam allah marka haddaan isku soo arurino waxaan arkaynaa hogaamintu inay tahay mawduuc da-weyn oo aan way ka da-weyn tahay aadamaha mawduuc ballaaran marka la fiiriyo baaxadda daraasadaha laga qoray iyo buugta lagu sameeyey mawduuc gundheer markaan aragno mawaadiicda qaarkood oo yaryar iyo tirada baaxadda laga sameeyey sidaasay tahay waxaa arkaysaa ilaa hadda inaysan jirin hal qeexid oo laisku raacsan yahay marka micnuhu maaha in hogaamintu ay tahay wax complex wax dhib badan in la fahmo laakiin qof kasta hogaamintu wax ballaaran marka qof wada koobi kara ma jiro taasaa waxay keentay qof walba inuu in yar u nal ku shido marka haddaan soo ururno waxaan leenahay hogaamintu waxaan leenahay hogaamiye waa badbaadshe hogaamiye waa ballaarshe waxaan leenahay hogaamiye waa bidhaanshe hogaamiye waxaan leenahay waa isku tale waa xoreeye waa mideeye waa dhise hogaamintu wixii aan sheegnay oo dhan ayay kulminaysaa